nagi isku day aan sameynay markaan la hadalnay walaalaheen shantii xubnood labana madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo baarlamaankuna ay ahaayeen isku aragti madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii saddexaadna waxa weeye dhinac bay ahaayeen khilaafku wuxuu ka yimid asalka ahina waa shantaa xubnood weeye galmudug sida ay ku timid nin waliba waa ogyahay waxaa leeyahay haruub ninkii soo lisa la ogyahay ninkii rabaa ha sido yacni dhibaato intii u soo gashay ee soo gaarsiisay meeshaan يعني ولا وذا قف ولا يبغى لكن لما وضع حس كرو قلمذوق دبعتها أول بي واحد للي عيسي أفر دبعته أي للي عيسو لسكراد هيدو صرير لسارني وحيتها أفر دبعته دقموي بدنا أو كمل رير قلمذوق رير قلمذوق نحق له shabaab baa haysta oo 7 sano 8 sano ka ilma dhalay oo la haysta oo aan la oran wariyaan naga maqan ismayn lama oran war maxaa naga maqan lama oran intii wax dhisatay baa qabanduursato madaxaas gashatay galmudug markii la dhisay labay u ka qaybsanay qayb baa maqan waxa maqan walaalaheen ahlu sunna wal jamaaca oo degmooyin iyo maamul dhinac kala jira oo ahayd maalintii halkan lagu unkay in la doono ahayd weli inaan lagu guulaysan waxa weeye waa nasiib darro kale waa meesha laga dhutinayo qayb bay ka tahay waxaa nasiib darra maantii la dhisay ilaa maantay inaysan galmudug wax horumar samayn kana siib kana saar kana tuur kana celi kana bedel ayay ku jirto waxa nasiib darra afraada raggii loo dhiibay maamulka inay markaan shalay ku dhexdhexaadinay oo markii hore gacanta isku saarnay oo la wada qadeeyay oo la isxaal siiyay oo la isdhudhunkaday oo la yiri aan xalay ku kala seexnay wixii aad ku wada shaqayn lahayd oo la isku qabtay si aysan u laaban si hore loogu socdo inaan road map u samaynay wixii lagu heshiiyay in la sameeyo saaka markaan isku nimid waxaa naga hor timid ma wiin ogeyn anu inaan madaxweyne yahay ninkii madaxweyne ku-xigeenka ماذا مدحويناها ولاد النواب شيء مايا ومعانو اللي قوينيسي إلى درة هذه الشرع يحال انت دمانيني ما تراور ماشي مدحوين إلا اسكتك كان أيام بابا لقى مغنايا متكالة أجيتك كوتشلة أوله كان ما هنا وانيقا أنا يوضع wuxuu labada wiil harag ku dirinaya isdilaya oo odagii dilay oo hadda ka horna aan ka sheekeeyay oo odagii la yiri maxaa wiilasha u dilaysaa oo yiri haraga yani goroga la dili doono haragiisa sanaada laga bixin doono sumasha ay dhashay yani haragaas anaa qaadana asna wiilku waa dilay wiilashii wuxuu yiri haraga ay ku dirinayaan hooyadooda sida gacantaas odaguna habartu u rabaa meel jinni xerag jinni soo meesha uma muuqata harag neef maqan haragiis yaa wiilasha ku direen odagiina ku dilay habartina wax ma haysato ciddii kala dhimatay waa meesha galmudug taa galatay waxaan u soo jeedinayaa codsi kulligiin waa idiin soo jeedinayaa galmudug walaalayaalow yaanan cidna ku eedayn fiiri adiga waxaaga adiga ka hadlaysan
haddaan annagu caadada iska ah siyaasadda inaan hadba meel la aado hadba qof in la cagto hadba madaxweyne hadba guddoomiye ku-xigeen hadda maya war waxa hadlaysan adinka idinka hadlaysan yihiin maamulada agtiinaana kama hadlaysnaa xamarna kama hadlaysnaa cid kale idinka hadlaysan yihiin marka gurigiinna yaa idinla dhaqaaya 11 muxuu ahaa deegaan doorasho odayaasheedii iyo waxgaradkeedii halkan joogay iyo gabdhaheedii iyo wixii la ogaayay oo ku bixiseen intaa isku tagtaan caawe yaan meeshaas laydinka dumin waxaana ka bilowdaan 5 nin intaa u yeertaan ninkii inka amar qaatana waa u dirsada ninkii idinka amar diidana awoodii gacantiina ku jirtaa baarlamaankan Soomaaliya leeyahay waxbu geedaha ku kariyaa waxba inta ku kar wixii keentay ay Soomaaliya horta adigu saada markii hore aad waxa nin waliba fakarayay Allah ilaahay yaa cid dharbaax yaqaan yaa kan yaa cid u warxun horta kan intu nacayn la asaga xagga iska geena xordaas yani waxa saanu warxumana waxay tahay waxaanu socday in wax idin hagaagaan 5 ninna idin kama adkaan karaan 80 nin oo baarlamaankan in kama adkaan karaan odayaalow inta iyo gabdho iyo waxgaradow iyo culumo iyo dhalinyaro inta isku tagtaan oo shir qabsataan galmudug aad adinku u talisaan oo dhulka inka maqan oo la haysto xoreysa iyo kuwa maqan inaad nabad ku doontaan inaad isku baadi goobtaan maamul fiicanna dhisataan wixii isku dubaridataan adina uma maqnaa alna uma qodna waa mahadsantiin